aad u tiro badan waxaan arkay malaay kalluun dhiig ka da'ay oo xeebta la soo dhex maray amarka anaa bixiyay inaan xeebta lagu arkin wax kalluuna oo qalan waa fiican inaan ka fikirno horey u dhacday in yaxasbadeedku intuu badda yimid dhalinyaro Soomaaliya ku cunay carruur Soomaaliya ku cunay intii maadada laga fikirno waa fiicantay waxaan rabnaa xeebtan inay noqoto xeeb nadiif ah oo loo soo dalxiiso oo dhalinyaradu ay yimaadaan oo ku caweeyaan oo ku dabaashaan dhiiggaas wuxuu soo jeedanayaa yaxasbadeed iyo wax dhibaato keeni kara labada arrimood hadda guddoomiyaha ka hadlay waa ka wada hadalnay mid waxaanu ka hadalnay nadaafadda xeebta tan labaad waxaanu isla meel dhignay inay habayn doonaan qorshaha ah kalluumaysiga loo yimaado baddaan liido inay xadidi doonaan ay u samayn doonaan systemka duwan kii horeeto oo nina intuu gacanta ku soo qaato kalluun dhiig leh aanu xeebta la soo dhex marin kalluunkaas soo jiidan kara yaxasbadeed waxaanu isuga xil saarnaa sida amnigaanu isuga xil saarno magaalada gudaheeda in xeebta iyo baddana laga helo ammaan laga helo waxaa ka howlgala ciidan ilaa iyo 80 qof maalin walbaba jimcada iyo khamiistana waxaa ka howlgala ilaa iyo 200 oo ciidan ah dhammaantood ama ilmaha fanay ha noqdaan waxay badaqaada ha noqdaan doonka doonta ha noqdaan amnigooda anaguna saarayn waxaan filayaa inay fiican tahay inaynu badda wada ilaashano innagoo dhan ilaalinno guddoomiyaha wasla qaadana iyadana haddana waxaan ku rajinaa guddoomiyaha gobolka laba eray ka hor